kulan wanaagsan daawade halkan waa Eldoret News hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro like-tan inoo taabo muuqaalada aan soo gelino dhiirigelinayno tahay aad baan ugu mahadsantahay waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa maxaa diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Israel ku dhex maray hawada wadanka Suuriya diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa habeennimadii Jimcaha la soo dhaafay waxa la sheegay inay fuliyeen faragelin elektaroonig ah iyo howlgallo xanibaad isgaarsiineed iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan diyaaradaha Israel ee ka howlgalaya hawada Suuriya xilli uu socday weerar cirka ah oo ballaaran tallaabada naadirka ah ayaa ku soo beegantay iyadoo diyaaradaha Israel ay duqeymo ka fuliyeen goobo dhowr ah oo ay ku jiraan gobolada Hama iyo Dimashq taasi oo si weyn dib ugu soo celisay su'aalaha ku saabsan ku xadgudubka joogtada ah ee madaxbannaanida Suuriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya Sana ayaa waxa ay sheegtay in hal qof oo rayid ah lagu dilay weerarada Israel ay ka geysatay duleedka Harasta iyo magaalada Al-Tella ee u dhow caasimadda Dimashq iyadoo ay jiraan dhaawacyo kale oo dad shacab ah soo gaaray hay'adaha warbaahinta Israel ayaa xaqiijisay faragelinta Turkiga iyagoo ku waramaya in diyaarado Turki ah ay direen digniino elektaroonig ah isla markaana ay joojiyeen isgaarsiinta diyaaradaha dagaalka ee Israel si ay uga baxaan hawada Suuriya mas'uuliyiinta Turkiga ayaa si soo taraysa waxay u muujinayaan carab ku saabsan howlgallada sii ballaaranaya ee Israel ay ka wado gudaha Suuriya kuwaasi oo Ankara ay u aragto inay khatar ku yihiin danaha dalkeeda iyo sidoo kale xasiloonida gobolka laba maalmood ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkigu waxa ay ku baaqday Israel ay ugu baaqday inay joojiso weerarada cirka ah iyadoo sheegtay in xilliga xasaasiga ah ee ay Suuriya marayso ay muhiim tahay in beesha caalamku ay gacan ka geysato nabadeynta iyo sidoo kale xasilinta dalkaasi bayaankan wasaaradda ayaa waxaa lagu daray in Israel ay joojiso weerarada cirka ah ee wiiqaya dadaalada lagu xoojinayo nidaamka iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee wadanka Suuriya sida ay sheegtay Al Jazeera ilwareediye ayaa xaqiijinaya in helicopter ciidan oo Israel ay leedahay ay si kooban uga degtay magaalada Suwayda inkastoo aan la shaacin ujeedka safarkaasi degdeg ah ciidamada Israel ayaa markii dambe waxa ay ku dhawaaqday inay beegsadeen saldhigyo gantaalada difaaca cirka ah iyo waliba nidaamyada gantaalada dhulka cirka iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan tallaabo kasta oo laga maarmaan u ah sidii loo difaaci lahaa shacabka dawladda Israel weerarkii ugu siyaasadeynta badnaa ayaa dhacay maalin ka hor weerar kale oo ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee Dimashq ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant ayaa weerarkaasi waxay ku tilmaameen digniin siyaasadeed oo loo diray dawladda Suuriya iyaga oo ku hanjabaya inaysan aqbali doonin wax ciidamo ah oo la keenayo koonfurta Dimashq ama hanjabaado loo geysto qowmiyadda Druze Israel ayaa isku dayaysa inay isu muujiso ilaaliyaha qowmiyadda Druze ee Suuriya iyadoo ku andacoonaysa inay faragelinteedu ay la xiriirto difaaca beeshaasi si kastaba ha ahaatee inta badan bulshada Druze ee Suuriya ayaa isku fogeeyay xiriirka Israel iyadoo jimcihii duqeyn ka dhacday gobolka Suwayda lagu dilay 4 qofood oo kamid ah beeshaasi dadka falanqeynaya arrimaha gobolka ayaa rumaysan in Israel ay isku dayayso inay sii wado ama ay sii wiiqdo Suuriya iyadoo horinaysa khilaafaadka siyaasadeedka ee jira Israel ayaana si cad markaasi u muujisay damaceeda ku aadan kala qaybinta dalka Suuriya iyadoo la eegayo qowmiyadda iyo waliba sidoo kale mid madhabo si kastaba hogaamiyaasha beesha Druze ayaa waxa ay dhawaan soo bandhigeen muuqaalo ay ku cadeynayaan damacooda Suuriya oo midaysan iyaga oo si cad markaasi u diiday baaqyada ku saabsan goonisutaagooda ama kala go'a dalka Suuriya xilliga dhacdooyinkan ayaa si weyn muhiim u ahaa maadaama xiisado isdiyaarsan ay ka dhaceen xaafado ay ku badan yihiin beesha Druze ee magaalada Dimashq kadib markii la soo faafiyay cod lagu eedeeyay nin ka tirsan beeshaasi inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed
nabad iyo naxariis korkiisa ahaatee. Inkastoo codkaasi la rumaysan yahay inuu yahay been abuur, haddana waxa uu horseedi karaa dagaallo hubeysan oo dhex maraya maleeshiyaad sunni ah iyo kuwa duraasa ah, gaar ahaan xaafadaha markaasi Ashrafiya, Sahnaya iyo sidoo kale Jarmaana, iyadoo dowladda Suuriya ay ku hoolan tahay dejinta xaaladda. Dhinaca kale, Turkiga ayaa si weyn markaasi u muujinaya inuu yahay xulafada muhiimka ah ee dowladda Suuriya, isagoo shaaciyay inuu xiiseynayo inuu ciidan iyo difaac cirka ah uu geeyo xarun istiraatiijiyadeed sida saldhigyada T4 iyo sidoo kale Hama, kuwaasi oo horey uga jiray bartilmaameedyada duqeymaha Israa'iil. Dhinaca kale, Israa'iil joogitaanka sii kordhaya ee waddanka Turkiga ayaa loo arkaa mid halis toos ah ku ah ololaha ay muddo dheer ay ku dooneysay inay ku ballaariso saameynteeda dhuleed iyo weliba siyaasadeed ee gudaha Suuriya, tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Bashar al-Assad oo dagaal xoogan kala kulmay kooxaha mucaaradka ilaa laga saaro gudaha waddankaasi Suuriya.